السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال meel kastoo joogtaan mar kale maxamed baaruud xuseen deegaanka Dhadhaab toddobaadkii la soo dhaafay sanadkii tagay 2019 waxa soo bandhignay waraysiyo aan la yeelanay Farxaan Maxamed Salaad iyo xaaskiisa Abshiro Rashiid Aadan oo intuu sheedaan ka dhax shaqeeyay isku daray gabadha wiilka ay gubtay haddaba waraysigaas oo ah mid aad u xiiso badan oo Farxaan gurigiisa ugu tagnay gurigooda ugu tagnay Abshirina gurigeeda ugu tagnay oo laba kala meelo joogay walina kala irdeysan Farxaanna uu arinta ka sheekeeyay gabadhiina uu cafiyay isla markaana gabadhii aad uga qoomameysay falkii dhacay oo ay cafiskii soo dhaweysay aad ugu faraxsan tahay bulshada Soomaaliyeed baa fal celin kala duwan iyo soo dhaweyn ka sameeyay arintaasi waxaana kamid ah ninkan aantay midig fadhiya oo la yiraahdo Ugaas Cali Maxamed Cilmi oo ku magac dheer Cali Xoon soo dhaw wandhawaay Baaruud dadkii muuqaalka daawaday waad kamid ahayd si fiican maxaa kaaga baxay waraysigaasi gaar ahaan sidee wax u dhaceen iyo faahfaahintiiba wallahi horta dhacdadaas waxay ahayd aad u xanuun badan marna dhibaato xoog leh ayaa nafta bilaadanka dareemaysa dhacdadaas markay dhacday markii ugu horeysay ka hadashay marna waxaan dareemay reality wax fiican oo farxad leh oo wanaagsan horta dhacdada haddaan ka bilaabno sidee u dhacday dhibaatadii ku dhacday wax la qaadan karo ama qofka bilaadanka qof walba oo bilaadan nafleey wuxuu ka xanuunsaday ahay way cuslayd haye alxamdulilaahi rabbil caalamiin ninkaas Farxaan oo walaalkeena dhibaatadii ku dhacday iyo gabadhaas ayadana walaasheen oo alla ku sabab gaaray oo dhibkaas geysatay horta aad aan ugu duceynay wiilkaas dhibaatadii loo geystay Ilaahay inuu soo aqbalay dhibaatadaas anagoo ka xanuunsanay oo qof walba ma taqaana ka danqaday wax wiilkaas ku dhacay iyo gabadha qaladka xoog badan ay sameysay oo qof walba uu cuntami waay wallahi tii anagoo haysanaa waxaan soo farxad geliyay alxamdulilaahi rabbil caalamiin Farxaan oo dhibaatadii ku dhacday ka bogsaday oo wariye Baaruud waraysanay hadana markaan aragnay oo sheekeynayo faraxsan hadiyad waxa kale cajiibna la aha Baaruud markii arintan silsiladan yaab kale uu ka hadlayay ama uu soo bilaabay ilaa hadda meel dhaxay u marayso dhameystirkay u dhiman tahay siyaabaha gabadhana sida geesinimada leh oo dhibka ay geysatay ay ula tacaamushay ama ay ma taqaana ugu sheekayso wax jiro oo rasmiga wariye u siisayna aad inoo farxad gelisay waxa kale dhinaca kale farxad geliyay Farxaan oo dhibka uga loo geystay oo problemka oo ku dhacay inuu ma taqaana nin Ilaahay yaqaano oo diin leh oo iimaan leh inuu noqday uu afis u fadiyay gabadhii maadaama Ilaahay ba maartay ku qaaday waxaan Ilaahay Soomaalidu wixii tiraasho waa ka dhacda laakiin qofka hadduu qirto dambigiisa dhinac walbay tahay dambi waa la gali karaa Ilaahay quraankiisa noogu sheegay laakiin qofka hadduu qirto mas'uuliyadii oo dhibaatadii oo geystay wax badan oo loogu xil karaa jira aadiyad dhibka muxuu u dhacay kaliya adduunka ma jirto laakiin horta qofka dhibkii dhacay ma qaatay marka uu ka qoomameeyay geesinimo muujisay wali cajiibay ma asagana wuxuu muujiyay iimaan iyo karti iyo geesinimo waxa kale oo jiro gabadha aan ka xasuustaa waxyaabaha ay ka hadasho yaab kale shaydaanku baa jiray laakiin shaydaanu jinni insi jira maqlay insi inuu u soo adeegay la isku diray oo ehelkii ay kamid yihiin oo saaxiibo ay kamid yihiin oo dad dhibaato wada ay kamid yihiin dhibkii marka uu dhacana Farxaan gabadhii dhibkii markay geysatana ayaga ka shaqeeyay hadana ayaga ka xun dhibkii ayaga geystay because maxay qofka madaxeeda wax waalay wax dhibaatada u geystay wax shaydaan ku noqdo waa bini'aadanka hadana dhibkii ay geysatay ayaga ka sii xumaaday ugaas hadalkaada ha hilmaamin Soomaalidu way isku khallantaa way isdishaa way isdhacdaa haddana dambiilayaashii dhibaatooyinka sameeyay oo waliba godobo xun galay oo dad laayay oo dawladda dudumiyay oo gabdho kufsaday oo wax badan dumiyay baa jooga oo taash loo xiraa oo laga dambeeyaa in haddana gabadhii siday sheegtay qof maseersan bay ahayd maysan wix markuu dhacay shaydaan bay way qiratay qirashada ay qiratay Abshiro arintaasi maxaa laga baran karaa waxa laga baran karaa marka ugu horeysa waa runta warkaaga dib ugu noqdo dad badan kuma yaalaayay oo dhibaateeyo gubay oo baabiyo qoorta ka gooy haddana madax lagu abaal guday ayagoo xataa sidii gabadhan Abshira u waxba qiranin dhibka ay geysteen waliba qaarkood ku daadanaya ilaa wali inay sii sameeyaan haddana raba haddana matqan Soomaaliyeed jirta runta waa gabadha waxyaabaha loogu bagay qiimaha hadda ay ku leedahay dhibka hore geysatayna waa gaar waxa kale oo wanaag ay sameysatana waa gaar waxaan afkeeda ka hayaa inay tiri hadda kadib aniga ama macallimad noqonayo dadka kala talinay oo ka waaninay wixii aan geystay raali kuma waxa igu yaab badnaa habeenkii la sii waday maan hooyanay
hooyadeedna gabadha hooyadeedna qof islaana oo sharaf badan oo qurux badan waay tusbax dheer ay soo gaday dhaxal markaasay tarmuus rinjiyo shaa intii soo koriso oo bigays waliba ay tiri salaada ha ka istaagin ilaahay ka baq ilaahay ka cabso ilaahay u laabo waxaad geysatay u ducee ma maqlaysaa waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa islaantii farxaan eedadiisa iyadoo waday oo ma taqaanaa dhibaatadiisii gaariga la raacday oo ayada la xiriireysay saacad walba oo taleefankana ka goosanin wiilka xaaladiisina maadaama labadan qofood wax kala jari kara ma waxbay isu dhaleen saddex cunug sidoo sheega farxaan haddana xaamilo waa ile labadooda isugu sokeeyay dadka adduunka been waay wax kale oo dhan labadooda isugu sokeeyay leedahay geesinimo yay muujisay gabadh si wanaagsan oo muujisay geesinimo asagana si iimaan leh oo wanaagsan muu go'aan wanaagsan asagana uu qaatay go'aanka uu maanta qaatay oo waxaad ogaanaysaa samirkan uu cajiib yahay ilaahay maanta farxaan nabad iyo nolol hadda ku nool yahay alxamdulillah inta kale dhiman ilaahay ha u dhameystiro marka waxaan aad uga xumaa dadka qaarkiis oo labada qof meeshay wanaag ka sii dhaxdhigi lahaayeen labadan qof laba qof oo kala go'ay maaha ilaahay awlaad dhaxdhigay saddex caruur ay u dhashay hadda uray leedahay welina waa isqabaa oo maqlaysaa dadkana iyaga isu xiga awlaaday isu dhaleen kuwa inay kala qariyaan raba ama maar taqaanaa inay fidna kala sii horiyaan raba aniga waxaan leeyahay ilaahay u dhawaadaan adduunka waxaan dhicinin ma laho wiil aabihiis dilay wiil aabihiis dilay aabbaa wiilkiisii dilay kow ka sii badan waa isqabaan soo maaha adduunka wax walba dhaca laakiin waxaa geesinimada ugu wanaagsan oo ugu qatarsan qofka bini'aadamka lagu qiimay kara go'aanka ay qaadatay wixii ay samaysay inay qalad ahaayeen inay ka qoomaysay ilaahayna uga qoomaysay xaqiisa nafteedana uga qoomaysay qofkii ay dhibaatada iyo familkii u geysatana inay uga qoomaysay waliba inta waxay ku dartay dadkii xantay habaaray inay waliba cafisay waxa kale oo aan rabaa inaan meesha asagana ugu duceeyo awowga farxaan awowgiis oo dhahay gabadhaas cid u dhawaa karta iyo cid fiiri karta ma jirto cid taabatana rasuulka guriga gaabto Allah ka dhigo oo farxaan sida hadalkiisa ka dhigaysta aadiyad tuqaas waayeelka oo waalidkana asagana waxa leeyahay Allah barakeeyo arrimaha damiyay dhibaato damiyay dad wax ma garada isbaabiin laha dad aan waxa li laftaan la tuur doon Soomaalidu waxay dhaadeen feenka laga dhamaysto farxaan iyo gabadhaas walaashay awlaad isu dhaleen haddana uuray u leedahay mana isfurin wanaagooda ka shaqeeyaan leen reerka waxa leedahay alla sii macaani waxaan kaloo maad meeshan ugu celinayaa wariye maxamed baaruud oo ma taqaanaa wanaagooda ka shaqeeyay oo gabadha haddaan maanta idaacad la geyn lahayn ama aan wax la tusi lahayn waxaa laga yaabi lahaa iyadoo inay wax badan ay hadda garatay inaysan garateen laakiin ma hadda ka gaartaan leenahay wariyaha ma taqaanaa dadku u dhaqdhaqaaqa inta dhibaato aad baa lagu dhaliilay arrintaas wareysigaas qaar waxay dhaliileen su'aalihii aan weydiinay farxaan marka hore ay leeyihiin maaragtay nin xanuunsan bad wareysatay qaar kale waxay u dhaliileen wareysiga aan siiyay aan maaragtay aan wareystay abshiro oo leeyri qof wax sameeyay dambi noocaas sameeyay inaa wareysato ma ahayn ka bixi wada qaldan tahay waxyaabo noocaas waxaan ognahay muddo 2 bilood ka badan baa abshiro la ruugahayay oo la xamanhayay oo la caynahayay oo la habaarahayay oo la haraamay wax kasta lagu sameeyay ayadana ay afka ka daboolnayd indhahan ay ka arkayso waxaan socdo marka qofku abshiro hadalkeed wuxuu ku soo koobtay aniga waxaan wax ka haleeyay in wax ku sameeyay waxay tiri waa ninkii Soomaalidan kale shuqul kumalihi talow maxay u soo xidhanayaan kulate masha waa horta baaruudo hadaadan adiga hadlin ama aadan gabadhina wareysan farxaana aadan soo wareysan hadda maanta guusha la gaaro cafiskaas iyo wanaagaas marna ma imaado wuxuu hadii la qariyo koomba la geliyo dulmigu moogta hadii la owdo siisa banaanba cudur uu sii noqda wanaag ma keenay dulmigii oodnay ayaad waxaad ka qaaday adiga dah marka waxaad dhaliil malihid si wanaagsan oo sharaf ilaaha ka jisaynay gabadhina maanta hidaaya alla ku soo riday wiilkiina waad aragtaa meesha uu maraayo ma maqlaysaa hadii la aamusi lahaa dulmigii shalay inay ku gubto loo sameeyay dhibaatadii ay ku sameysay ayadana cuqdadeeda qabiilay isagana cuqdadeeda dhibaatadii ay ku gubto kuwii u sameeyay awli daba qaylina waxay rabaan reerkaas inay soo imaanin waxay rabaan gubid kale inay dhacdo waxay rabaan wixii la dulminayo wixii is dulminayo in mara hoosteed la geliyo in gadaal laga xanto xan ma jirto dulmiga waxa la yiri afka hadaad gacanta ku suuli hadaa ku suuli weysana afka kana qalbiga kana cali hadii qofkii marka uu ka tooba kana anagu islaanana ilaahaygi dadkan abuurtaa wuxuu qofkii gafo isoo laabto aan dadku ugu jecel soo ma ogid farxaan bilaadan waay gabadhana bilaadan waay gafaana dhaxmaray gafkina hadda labadoodu waxay ka muujiyeen tanasulaad fiican wanaag fiican hadana waxa uu rajeynaa farxaan iyo ayadaba inay isku waaraan oo san madaxeedana dhigin maalin baa wax ka dhaceen gabadha dhigin hadda maanta way ka dambeeyeen waxaan u maleynaa in maarta experience xoog leh sidii noo sheegay inay ka qaadaan kalsoonida ay sii badato laga welin asaga waxa uu dhahay libaaxay barida goostay waxaan ka baqaa oo jabka ka soo baxay waxaan baqdinta ayada xaqiiso tir waxaad ka baqdo waxba ma jiraan asagu inuu sidoo kale noqdo daahir ka noqdo oo san
عفنته وعفيي سيده إلهي حقيس وعفي أو قلبي جيس وقشط أنت في النظر وطنا وحلنا وركته وبكينا قيسك كدافع لبعض أرنت كلام مهم كوحوي واس أرنت سيدا موقت وحا قندقو ليري ورحمة الشيل اسكو دريال كلا الدليال يدد فيدما وضيال دمرك كلا سوماليين يقف كاست أو قف ودره maxaa laga qoysaska isku dumin dadka qoysaska duminaya maxaad fariin u dir lahayd wallahi waxaan u dir lahaa annaga ogba kuwa badan oo hadda ilmihii hooyadood kala haya 3 sano kala haysta waxa dheer ay ka dhacday ilmihii joogan habartooda Kismaayiil isaga haysta haddayba jirtaaba annaga waxaan leenahay qof kasta oo qoys islaam inuu dumiyo raba war ilaahay uga baq qoyskaaga dumay hadaa qoys inaad dumiso rabto aqra ayadoo la gaarin adduunka ku cadaab mudanaysa rabbigii ku abuurtay ka baq qoysaska iyo hooyooyinka ilmaha dhalay iyo aabayaalka ilmaha dhalay dhibaatada lagu dhaxwada laga joojiyo ilaahay loogu noqdo wax aad ka qaadaysa ma jirto waxaad u dhimi kartana ma laho adaa dambigan ku siyaasanayay dhibaato marka waxaan leenahay Soomaalida ilaahay laga baqo dulmiga qoysaska la isku dirayna hal la joojiyo baaruudna ma hada ka gaarto boqolkiiba boqol wanaaga uu muujiyo xaq uu soo ifiyay banaanka uu soo dhigay sida labadooda uga qayb qaatay ma waxaan qoysas dhameyn karin oo dhameeyay qoysas wali waxaan rajaynayaa insha Allah maalin waan sheegay farxaan iyo abshiro oo midna kursiga ku fadhiyo midna kursigan anigana haddii ay ogolaadaan ama dhaxdooda aan fariisto ama geeso aan fariisto ayaga laftooda isku qoslahayo le war Soomaaliya annaga shalay annaga iskhilaafnay waana iscafinay reerka annagana waa dhisan yahay ayagoo wada nool ina qof walba dhinac labada insha Allah taasna waan rajaynaa waa ku rajaynaa soo ma fiicna taas boqolkiiba boqol xasanaad badan iyo qayr badan Allah ka ina ka shaqaysana aad aan jecelahay ina ka shaqayso aad aan jecelahay aadiyad marka waxaad leedahay waa arrin wanaagsan waa ilaahay ka jisayn doona insha Allah taala Soomaalida inta wax garatana waa kugu duceysay صح wanaaga aad ka shaqayso ciidaas aad dhax dhigtay labada qabiilo isdili lahaa labada qoys isdili lahaa dadku wax ma garada ka buux yaa dad wax fahmayna ka buux intaan hadda hawsha sameeyay fariimo badan bay soo gaarahayay isla hadda intaan wareysiga ku jirnay Facebook nima fariin iga soo diray Soomaaliyeed oo aan garanaynin oo Cabdiqaadir ay qoran wuxuu walaalow waxaan dhageystay wareysiga alla yeelatay wiilka gabadhiisu gubtay Farxaana iyo gabadha lafteeda oo habshiro walaalow shaydaan baa dadkan ka shaqeeyay waa dad isjecel waa reer wanaagsan waxaan ka codsan buu yiri inaad ku dadaasho sidii reerkan uu u dhismi lahaa isla markaana uu u sii dhisnaan lahaa aad ka dhax shaqeyso sida aad hadaba noogu soo gudbisan maskax caafimaad qabo ku hadla aadiyad maskax caafimaad qabo baaruud ha u joojinin inta xun aadiyad inta wanaagsan oo garanaysa dadka ka badan aadiyad ma maqlaysaa hadda gabadhan waaba la gubaba kuwaan isgubin dhibaatana isu geysan ninkii naagtina aas dirin ilmo hooyadood looga haya aadiyad ma maqlaysaa marka ilaahay ummadda soo hadeey xaqan Allah ha tuso dadka muslim waa ma maqlaysaa muslimiinana qoysaska dulmiga ha laga daayo qoysaska fariimo wali badan hadda gabar la yiraahdo Najmo Cabdullaahi Xasan idan waxay leedahay waxaan ilaahay ahaynba u shaqay ka dhacdaa farxaan wuu ku maasan yahay cafiska walaashii abshirana ku maasanta qarashada dambiga ay gashay waxaan se ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed dadka isku dirahaya reerkaana dabka ka dhaxshidahay inay iska daayaan isla markaana ay dhismaha reerka ka shaqeeyaan baaruud fadlan halka ka sii wad isku keenta reerka iyo dhismaha reerka maskax caafimaad qabto waa aadiyad cid kale oo ugu jirto qoys hadii la yiraahdo markii diinta islaamku dad diin ku dhashaanaha oo diin ku dhaqmay aadiyad markii laga hadlayo laba qof oo isqabto qof saddexaad ma shaqo ku leh hakuna حتى والد شغل كمله لبدوده يطالع أيوة بس كوينه لبدوده هدي قف كان دبوا وجيسان الله كل حساب طبعا كان هذا وجيسان كان الله كل حساب طبعا وردت كمسؤولية دي أيسان لهين كعناها كتاج تاجي وظلم وقوة وريله هو عفسان ربي جدا أبورته قبض سيدو كلام حالنا ومدة Soomaaliyeed qof kasto inaad qalad markaad gasho inaad qirato dambi maaha inaad qirato waa mas'uuliyad way wanaagsan tahay walaalka uu ku cafiyo adiga laftaadana in wixii aad sameynayso uu qalad aha inaad qirato waxay kamid tahay mas'uuliyadda shakhsiyadeed marka waxaan leenahay abshir waa mahadsan tahay farxaan waa mahadsan tahay reerkiinina annaga reer dhisan buu nooyahay ilaa hadda uu dhisnaan doona waxaan rajaynaynaa hadda saddex caruur aad joogto cunugna jidku ku soo jira 10 kale iyo 6 kale iyo 8 kale in la dhalo kana marka rajaynaynaa maslax kiina oo noqdo duwil noqdo maslax inuu noqdo hadii ilaahay yiraahdo wiilka marqaati ka hada wiil haduu noqdo magac loo maslax maslax hadii ilaahay yiraahdo oo reerkaas ma taqaana mideeyo aan rajaynaynaa ilaahay idinkiisa waan u ducaynaynaa insha Allah ta'ala adigana aad baad mahadsan tahay ummadda Soomaaliyeed gabar haday noqotana barwaaqo leen barwaaqo
ما شاء الله نقطنا برواقة gabar haday noqoto barwaaqo إن شاء wiil الله hadduu noqono نقطنا مصلحة لنا وين دقيسنا marka waxaan leenahay aad iyo aad marka warxumada inta iska daysiin gabadhina sida ay ilaahay ugu tooba keentay dab ha ka dhabayso asagana sida ilaahay dartiisa uu cafiyo gabadhaas ha u ahaato qoyskiisana ma isku buro qaraabada iyo dadka kalena waxaan leenahay dulmiga la joojiyo ilaahay looga boqo qoyskana la miday insha Allah ta'ala abshiro su'aal aan weydiiyaa jirto oo ahayd ما جعل بعد أقول تم سنعيب مصيركم ما جعل وسنعيب في سنة جعل هذا مصيركم سيدا ما جعل وسنعيب هذا يقول مصيرك سي سبع ما جعل بعد نعيب بعد كان مسب جعل كان هي ناقد ما يسجعلين ما بقويس هي أما حتى ما لدق عليش هدي أي سن ربين يفرق ورك بالله بله سيدا بنام هدي نين كان عادي ما ديشين ما عايسين وحكومة دفتن تبارك الله ما يسوي يفرق ورك بالله بله لكن وحاس كيناي ربيتان أي ربطوا أنا كان إسكير يدير مرة لكن شيطانكي dhibaatada kale la cishto shaydaanka dhibkood sad way ku dhaado maqlays biya fartan galiyada haddana inaan biya fartan galiyay ayada hadda dhib geystay wali jecesha zaid haddana way qiratay geesinimo waa inay jecesha wali ay rabto waa marka nacayb ma dhihi karno wuxuu wax shaydaanka adeegay ma maqlaysaa kuwa maalin walba dadka laaya maqlay ayagoon loo ciqaabinana taaj loo xiraa war kuwan ilaahay hal mar isku sabab waxa laga yaabaa dareenkooda dambe noloshooda dambe inay waxba isku sameeyaan marka ilaahay waxa uga baryaynaa qoysan dumin inuu ilaahay ka dhigo aamin 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 qoysan dumin ilaahay ka insha Allah taala aamin shukran adnaada uma sallallahu alayhi wa sallam thank you